السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal halkan waa garoonka Waamo degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxaa iskugu yimid jameecooyin kala duwan sida aad arkaysaan iyo mashaayikh tirada iyo xisaabinta ka badan. Dhammaan dadkani waxay iskugu yimaadeen ka qayb qaadashada siyaarada Al-Sayyid Al-Faadil Al-Mahbuub Ahmed ibn Idriis Al-Ariishi Al-Yamlahi oo ku magac dheeraa Abul Cabbaas Al-Xuseyni kaasoo ahaa wadaadiimeed ka mid ah kuwa ugu waaweyn culimada suufiyada sidoo kalena waa hogaamiyaha ay ku absirtato dariiqada suufiyada ee Axmediyada la yiraahdo. sanad kasta maanta oo kale ayaa lagu xusaa halkan maadaama ay ku aastaysan tahay sanadkii uu geeriyooday Al-Sayyid Ahmed ibn Idriis oo siyaaradiisu halkan ay ka socoto waxa uu ku dhashay dalka Maghrib ama Morocco sanadkii 1763 hijriyada kuna beegneed 1750 miilaadiga. Culamaa'udiin, qaadiyaal, maadixiin, subacley iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa sanad walba ka soo qayb galay siyaaradan ayaga oo halkan ku soo bandhiga digriga alle sidoo kalena sheekha ku weyneeya dariiqadiisii Axmediyada. ugu dambeyntii Al-Sayyid Ahmed bin Idriis Allah ka raali noqday waxa uu ku geeriyooday magaalada Sabya oo ku taala dalka Sacuudiga sanadkii 1246 hijriyada kuna beegneed sanadkii 1837 miilaadiga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Alihi nawafajiya mahadsan. Maanta ziyaariyay Sayyidkayna Sayyid Ahmed ibn Idriis ziyaariyisa inaan banaanbax ka qayb galno Allah lama kaniye Allah nawaafajiye ilaah saamahadna nawaafajiye waad u jeedaan Ahmed wuxuu meel kastoo jooga isku yimid si ajaa'ib leh ziyaarto u dhacaysa Sayyidkayna taariikhdiisa waa taqaanay malaga sheekaynayo Sayyid Ahmed ibn Idriis wadankan Soomaaliya asaga dhalashiisa waa Maghribi sheekhan مغربي واسع وهو ناس مغربي ولكن طريقة أحمدية واي أصل مروكان واي يمنوا يفجون حتى لكن السعودية نقص ماشي ما يفجون شيخ ضريحي سوى سبيا رب العزة وحده جل جلاله أسقى كورما يولد إلهي إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطه النبيون والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل فقالوا يا رسول الله أخبرنا لعلنا نحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاضونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس سيداسو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسوحا وريها أبو داود أو يا وريي وحواي حضرتان وحضرة المباركة يا ليلى وأتباعدي قطب كينا شيخنا شيخ أحمد بن إدريس العالم الرباني noloshiisa inta badan sayidka waxa ay nolol diini ah oo islaamka ku qaatay dabcan sayidka madhabtiisa waxa ay maaliki ayay ahayd madhabta maalikiyada ayaa madhabtiisa ay ahayd waxa kale culimo taariikh ay soo taqriiriyaan sayidka dariiqadan idriisiyada ka hor intuusan aas-aasin sayidka wuxuu ku abtirsan jiray ama dariiqo ay u ahayd طريقة سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وأنا ما أرتي تاريخ سجن واتاس أو علماء الإسلام كأسوق تقريريين يعني ولقي مركا سيدك وحوها نمكن نول طريقة أيوها سيدك سيد الشيخ إن الشيخ يوسف أو نور الشيخ جايبه وحونا الشيء ودمدا اللي يراده مغرب مركي اللي يراده شن ودنا اللي سكو يراده أو دعان قلبيتك أفريقيا شنتاس ودنا إكليين مراكش موريتانيا تونسيا الجيريا ليبيا wadamada la isku yiraahdo
waddamadaasa maqrib la dhihi jiro waagii hore hal waddan ay ahaayeen intuusan gumaystiyi uusan kala jarjarin عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan isugu nimid ziyaaradii sheekhaynii qudubka ahaay jaliilka ahaay caalimka ahaay callaamka ahaay sheekh axmed bin idriis ayaan joognaa
ziyaaraddaas oon isugu nimid oo akhwaanku isugu yimid allah nagu anfaco ilaahay awliyadiisa asigaa karaameeyey qur'aankiisoo ku sheegay xadiidka rasuulka lagu sheegay mataqaannaa qof ugama baahna sheegid kale wax la soo koobi karo ammaantooda ma aha ilaahay yaa ammaanay markuu qur'aanka ku yidhi alaa inna awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum albushraa fi lxayaati اddunyaa wa fi alaakhira waxaa u sugnaatay saad haddaba arkaysiin adduun iyo aakhiro bishaarada u sugnaatay midda adduunya waa tana ahoo hadda zimka hadda ilaa intuu daa'im yahay sidaan ayaa laysugu imaha loo ziyaarahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أيان أقوم هاد إلينا ما أنت حاضر إذا أنصح حاضرني سيد كيني أولي إلهي كمدة هاي ونونس بشيغيني سيدي أحمد ابن إدريس من بحيسي oo lagu ziyaaranay ayaan joognaa galabta oo ka dhacaysa degmada Boondheere farxadii la yaqiinay oo cajaa'ibta lahayd oo mashaayikhda waaweyn lagu ziyaaran jiray oo kamid ah sayidka Sayidi Ahmed ibn Idris iyo sheekhayn caalimka ahay Sheekh Hussein Cadde ilaahay aan ugu mahadcelinaa kulankaas aan maartay ku soo kulannay qof walba ilaahay ma waafajin in yar oo ilaahay waafajiyay inta isugu timiday oo soo xaadirtay إلهي سبحانه وتعالى وحن أرجيهنا إنه بناف قصيه أو شيخ نفحات كيس إلهي نصيه أنت إلهي أقدر قلبك خجل يقول إن شاء الله تعالى يقول سيدو كلا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى دبنا نقول ضعفه مشايخ ذا ساداتك أو نسوق سيد طريقة ذا أجدين مروا البصير الله خصوصته أو الله مارت الله قصوا قبل زيارات كذا أنا قلنا إن شاء الله تعالى وحن جعلنا هاي إلهي سبحانه وتعالى إنه نقول أفسد التوحيد كان معانا تبذن أو مارت إياه طريقة أحمدية إلهي سبحانه وتعالى كرجيهنا إنه مارت نقول أفسده ونكبرينا daana daawadayaal waa naga intaa warbixintii koobneed oo aan ka diyaarinay siyaarada allaha u naxariistee al-sayid Axmed ibn Idriis oo ka socotay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe daawadayaal nabadgelyo